وحوليه سبحانه وتعالى آية وين فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا waxay ku timiday kelmadan cusri aayadan dhexdeeda iyadoo ah macrifo waana cusri kaliya kelmadan yusrina waxay ku timiday aayadan dhexdeeda iyadoo ah nakiro waana laba yusri mana dhici karto in culays uu ka adkaado laba fudayd bishaaraysta dadka imtixaanana inuu ilaahay fudayd inugu bedelo waxaa keeni kartaa marka youtube-ka ku leenahay Sugarline TV تحلو الحياة شوقا إلى المولى أسلمت روحي للإله كان المدى أشواق حتى كسه الندى والقلب قد أرضاك يا رب حين اهتدى يا رب حين اهتدى لم يكن قرار رحيم بالإسلام سهلا فهو يعيش برفاهية كل من في عمره كان يتمنى markaan ka tagay shaqadeedii muusiga waxa igu hor yimiday su'aalo dad badan ay weydiinayeen sababtay u samaysay sidaa waayo waxaan ku sugnaa guul xiriira waxaanan maray waqti xun noloshayda sanadkii ugu horeysay ugu dhawaan waxay ahayd waqtiyo adag markastoon tukado markastoon soomo in bilaabo inaan wax ka akhriyo islaamka way adkayd waayo maanan garanayn waxa noloshayda ku sameeyo dhibaatada ugu weyn ee raxiimtaan ka hor timid waxay ahayd hooyadii markii ay diiday inay islaamto halkaasay u haysatay qof kasta oo diin ku biira munaafaq gaar ahaan muslimka ila suurayso 17 sano muu karin inuu ku yiraahdo kelmad kaliya oo ku saabsan islaamka markaan ogaaday inay leedahay kansar waliba nooca dilaaga ah umana hadhin iyada wax ka badan 3 usbuuc inay noolaato markii u horeysay ayay qalbigeedu waxoogaa islaamka jaleecay laakiin wallahi taasi waxay ahayd mucjiso inay ku soo dhamaatay tallaabo laakiin furaha qisadu wuxuu ahaa maalin bay ii yeedhay waxayna aad ugu dhawaatay waqtigii dhiman lahayd way ii yeedhay waxayna tiri fiiri ma doonayo in la yaaso ee waxaan rabaa in la gubo meydkayga waxaan idhi dhab ma laha dabadeedna waxaan idhi haddaan gubno ayaa ku gubi doona wayar aamustay haddana waxay tiri maxaa lagu bedeli karaa waxaan idhi waxaan yidhi bedel waxa uu ah hadaad dhimato carruurtaada aniga iyo carruurtaada ayaa ku qaadayna cid kalena ku arki mayso waxaan kuu qaadaynaa meel halkaasay gabadhaada iyo xaaskaygu kugu meedhi doonaan kuguna diyaarin doonaan waxayna ku duubayaan gocad oo fudud jidhkaaga kuna arki maayo qof kale maalin keliya gudaheedna waxaa lagugu aasi ciidda hoosteeda taabuud la-aan degdeg la-aan si aad u fudud waxay tiri sidaas baan rabaa laakiin imika dhibaata ay haysataa muslim maaha weli waxay la hadashay walaalkay iyo walaashay waxayna ku tiri waxaan rabaa sida muslimka in la yaaso si degan baan waxaan isugu dayay inaan ugu yeedho islaamka hadduu jiro khaaliq maanad u malaynayn inuu rasuul soo diray maanad u malaynayn in laga yaabo inuu soo diray cid dadka hanuunisa maalin baa waxay tiri haa waan rumaysanahay waxaan dareemayay farxad waxaan ku faraxsanaa inay alla rumaysay rasuuladana rumaysay waxaan yidhi insha allah waxaan u heli doonaa cudurdaar waan u ducayn karaa waxaan ku odhan karaa imaamka insha allah waxaan u aasi doonaa sida muslimka laakiin wiilkayga oo 14 jir ahaa ayaa yidhi sidaasi kuma filna wuxuu yidhi sidaasi kuma filna waa inay shahaadada ku dhawaaqdaa laakiin waxaan ka cabsi qabay hadduu isku dayo inuu shahaadada ku qasbo inay diido ku adkeyntiisa markaasna dhibaatana soo gaadhaysa wuxuu yidhi hawalwelin aabo hawalwelin anaa la hadli doona wuxuu koray jaraanjarta qolkeeda anna hoostaan joogay muddo saacad ah ayaan socsocday allahayow maxaa dhici doona may ogolaan may diidi ugu dambayn wuu imiday wuxuu yidhi way fududahay dhib ma laha waxaan idhi waa maxay wuxuu yidhi waxay ku dhawaaqday shahaadada
waxaan idhi carabi miyay ku tiri wuxuu yidhi haa carabi kaamila dhibaato la'aan dabadeedna 2 ama 3 cisho kadib way dhimatay alxamdulilah alxamdulilah subxaan allah alla ayaa soo hanuuniya ciduu doono كم عشت